horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino dumarkuu ka tagay iyo daymada caruurta dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsi dalka iyo dadka yeelkiisaba samir allah ka siiye xildhibaan boqorre qabuuraha isbitaal madiina lagu aasay madax badanna meesha waa ku baroorato markii hore aan amnigiisa xil iska saarin kiiskiisa waa soo baaraynaa ma dheheen canaasiirtii dishay cadaaladdaa la hor keenayaa ma dheheen war waana daba joogahay dheheen war ana mayliyaabana wal dhimadaay waana wal is aasayay aas garan leylile aaska garan tii jingada gablahaskasi ayaa ka bedelanya iin sheegaba anigu waxaan la yaabanahay dad inta la laayo meel u muuqata la farfariisanayo oo misaro loo soo noqonayo la laynayo laagisi isdabadidaysas libax soo dhexgaleos xabad ka qabsadi oo kuwii kalena iska daaqaayin wii indhaha ma saarin miya adiga maya anigu weeraan aqaanaa oo inya eriga dalaq u soo yiraa moorada hal riyaa ku aada inta ruskuxsiyo 400 oo kalena jajabihaya yacnaan toog erig iska lahayn anu waxaan maqli jiray xoolaha meeshii raq iyo waraabuhu raxan ka dhigo ka roora ayay gartaan riyaha ma ka liidanaa marka xoolaha aad sheegaysiin annagaa ka liidanna war anigu waa yaabanahaye ismaac cilmi boqorro oo 90 sano jiro oo wejigiisu ay sujuud madoobaysay maxaa loo dilay aryaa mid sujuudu ku taaliyo mid 90 jira iyo mid 8 sano jira midna la dhaafi maayo waxaa loo dilay boqorre dagaalkii 64 waa ka qayb galiyay Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray kii kaloo 77 waa ka qayb galiyay haddana beriga show ciidamada xaqoora hal la siiyo u taagnaayo dhihi jiriyay intaas nin yiraana dambiyaaba looga dhigay how saasaa loo dilay ciidamadu ma og yihiin ciddii u dooda in la dilayo war ayaga maalin kasta la dilaaye idaacadaha ka dhigaystaan war boqorre maalin dhimad isagoo masaajidka soo baxay ayuu koox saxafiyiinoo meel fadhida u yimid wuxuu yidhi may taqaaniin adeer mayay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi sidaadii aqoon weydeen ayaadnaan u aqoon taariikhda dalkiinna calaa kulli xaal amba ha fiicnaado amba ha xumaadee qof kasta waa dhimaha mugga waxaan leeyahay bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqa maayo allow boqorre buddiisa u nuuri warnimayow dilalka magaalada muqdisho ayaa intaa waa ku soo badanaysaa oo 3 iyo 2 la isku waarsanayaa nimankii waxa waarsan jirayna duqaynta waa ku soo badanaysaa oo cirka looga soo dhacay ayadana toko biltoka Soomaan waxaan maqli jira adaa Talyaaniga teege toka birtoko ma taqaan war toka bitokada sheegaysaan weeye xalaash gobolka shabeellada hoose shabaab badan oo meel tuuran aabalaaya cirka uga soo dhacda meel ay canshuurta dadka shacabka u qaadi jireen ayaa ayaga canshuur looga qaada waxaa hore loo yidhi adaaja luntaana biyano dallacaddan tartiib u fuul aryaa taana naguma soo dhowaane waxaa la yidhi ma fiicnaa fiita ka bugto la falfaalaya fiidgaashow warwar ma haysiina jubbaland doorashadii iyo musharaxiintii ayaa ka bilowday afhayeenkii hore ee jubbaland cabdinaasir seeraar ka daba jeecyo badan isku wareejiyey ayuu yidhi musharaxana kursiga sayid sheekh axmed dhuxul uu ku fadhiyo ayaan rabaa buu odaygiina haddee inuu ciidan diyaarsadaa la sheegay may dheega jiray maanyo galli iminshiid galliba malakamood mankama mooga dheega jiri deekay amle ilisku wareejiye i guri dhagahan le ilisku wareejiyeba lebed i nolol meeli ku qudbahoy doontale warwar ma haysiine wiilkii doorashada puntland madaxweynenimada ku sigtay jenaraal asadiyaano muqdisho yimid baa layidhi isagoo xil loo magacaabi rabo marka waxaan u malaynayaa taliya ciidan haddii laga dhigo in bur iyo biyo loo kala bixi doono aryaadhaha waxaan maqlay ra'iisul wasaare khayre inuu jubbaland ku sii jeedo muuse biixina waa kii dhahaya ayaamahan wada warramaan diyaar u ahay filla soomaaliyana waa tii tiri wada shaqaynta muuse waa soo dhowayhaynaa odagii xaafahayna waa kii yidhi xabadka fuli mayso ballankiiba waa nooga baxeen mugga dadka kale haddii la qancihaayo odayga naftiisa maa la qanciyo mase waan la rabin hadday muuse biixiba run tahay inuu farmaajoobay axmed dhuxulna qayraysan yahay lana heshiinayo wuxuu xaafla boodboodayaa dekad la'aanteede
dawladnimo ma diidana anigu saan isleeyahay maxaa odaga loo sirahayaa ma hadda loo sheego intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warwar ma haysaana beledweyne banaanbax weyn baa ka dhacay dadkuna dabageedaan ka cabanayna bay dhaheen macaawinadii la keenana meele cirib iyo jaanigta lama ogaa la yidhi war waxaa la yidhi danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo oy daawo dhigataa ummadi dawlad noqotaa intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin aad leedihiin ummadda maa dagaashan adeegay rabtaahe nafalaad dagaal ku xiraysatoon cidna aan isayn cidna caawimayn oo camal islaan ka carrawdayoo bele loo carbiyey cagta saartayoo aqligiiyo cilmiga la collaysanay awa daranida allow eebbaa igu ogo adaa ku ciraysatid colaad u dhex joogtay taan colaad u dhex joognay innagu cirdalool cimrigeennu ahaaye hadda yaan nacasuumay war shahaado maad ka wadataa war afkooba shalgaadan olaadlay boo sheegasan aakhiri lisinkueriya ka aaliyana aadan isaaqow beedha wax wara kama haysid miyaa wariya nabadi nabdaayi ka jarta wadaadhaha magaalada sharmashiiqa waddanka masar madaxweynayaashii jaamacadda carabta oo farmaajo uu ka mid yahay iyo madaxweynayaashii yurub baa ku kulmaya waxaana looga hadlayaa baa la yidhi dhibaatada ka jirta dunida islaamka yaa madaxweynahaan yowal jaamacad kama soo bixin miya miiska keen qabsaday wariya farmaajo madaanu maraykan wanaaraasan madaanu arabu wanaaraasan antaniin waddankasan warwar ma haysaana madaxweynaha masar erdogaana caayoo yidhi waa doqon aan waxba kala ogeyn waryaa dhibaatada ka jirta dunida islaamka shalayaa la sharaxay jahli haddii fakhri lagu daro dembiilaa ka dhasha jahli haddii maal lagu darana fasaad baa ka dhasha jahli haddii maxtinimo lagu darana kelitalis baa ka dhasha jahli haddii diin lagu darana argagixisaa ka dhalata aryaa yurub naxaa ka quseeya dunida islaamka ma dhibkay ka sii joojiya mase dhibay ku badihe horta urdugan dadka xawu caaya leeskama dhaxsho asagana war ma haytan madawiinagii waqooyiga kuuri kii jeegada dheer lahaa jim kunjangalafleeraay usii walaalisa tareenha korenga leeri dalka vietnama dalag ha eren ana fi ingiriisiga magorada misdis Donald Trump eren madil infisrin Donald Trump aawiya leeyinga leeri war booliiska Malaysia kaba kotorban ay qabteen arwaaba yaabiye booliiska shaqo la'aan badana ana kamana yimaadaan qaraxan abtay aanta loo buubuubahay naga qaba lahaayeen aryaa boolis islaameed ma wax ku taraya haddii kuwaaga xabad ku qaba waa in adiguna aadan shilin u taagaynin war boolisku kiidana hindiya nagadeena madi wala dhiyanka dambe kooyan big bog war booliska maxaa ku eedeysaan qof naftiisa dilay ma ka hortay kartaa u ka celi kartaa naftiisa war haddii run la sheegay magaalada in la baaro ayaana wadooyinka dhan laga xiri lahaa waryaa jawaanadan ciidda oo meel kasta lagu hoos jira ma magaalada lagu wareejiyo war lamadun shabaab isla shaqeeyaan meesha la wareejiyo abni la fadaw war markaa magaalada soo gelaydeen damiin maxaa la idiin weydiin waaya horta dadka beledka jooga ma la kala yaqaan base waa uu lees dhex dhooban yaa ku yaqaan adiga anigu waxaan ka shakiya ciyaalkan damiin la'aanta iska dhaldhalanaya iga kaga allah idin aruuriye